See, guys, I'm sitting here like almost an hour. I don't see any car is stopping. Everyone tried to support me. Because, people, just lie. Somalia darooda been sheegaysaa waxaa leedahay dad baan support gareenaya, dad baan caawinaya, dad baan wax u qabanaya. dalkaagana wax uma qabanayso, dad kale wax uma qabanayso. Waxaan idin sheegaya especially naagaha siilkooda meel kale la aad edabta inaad yeelataan oo dad ka leexataan waa diideen, laakiin anaga caananaga ma soo cabasaan. hooyadii naaska idin nuujinaysa ma nihin moogta. waxaan idin sheegayaa waa kala tagnay, waxba isuma nihin. dhulba anaga dhexe baabuurtaas u yaacays aniga ma xigtaan. laakiin waxaan idin sheegaa dhulba anaga dhexe, dalba anaga dhexe, dhiig inuu naga dhexeeyana aniga ma hubo. laakiin intiina waxba waa ka qaban weydeen. laakiin waxaan idin sheegayaa waxaad kaliya anaga dhibaatada noogu geysateen laba arrimood. labada arrimood haddaan naga dayn lahaydeen wax walba caadi hagaagi lahaa. kow, ummadda ilaahay anaga supportiga weydiisanayno inaad naga celisaan oo Soomaali oo dhan naga xigsataan oo ummadii oo dhan naga xigsataan. just example, masaajidan aniga aan ka soo qaatay bariis marka aniga Ramadaanka hadda ninka ay fariista niman Soomaali oo gare iska dhigaa ay fariista oo nooc kale u eeg. aniga weligay Soomaali saa u eeg baarkano jinni amood nimankaas aniga sheeganaya oo marka aniga nimanka aan si dhex maro oo aniga bariiska soo qaadanayo baa waxa damcaanay avoid karayaan oo yiraahdaan don't do that inay dhahaan. laakiin waxaan idin sheegayaa nimankan waxaan anigu u sheegayaa iyo wixii lamida inaana waxba aniga iga joojin karin. meesha aniga aadaha iga joojin karin, lugaha iga joojin karin. dadka aniga aan la dhiil garaynaa ama dadka aniga aan wax weydiisan ayaga ahayn marka waxay ogaadaan inaana waxba isu ahayn. aabahay aniga dhalay, aabahayn hore wuu dhintay. aabahay wuu dhintay. nin kaloo madowna aniga wax aan isuna male. oday kaloo madow meel maraaya aniga waxba iima waayo oday kaloo madow hadduu meel maraayo wax ii qaban lahaa. waxyaalo badanaa meel kasta yaalo oo jiro oo dhibaato ah jirta oo waxba uu ka qaban waayo. laakiin inuu naag bariis meel ka qaadanaysa uu qasab u yidhaahdo halkaa ha gelin, aarda meeshaan dhex marin, raggaana dhex marin, maashaa ha kacin. waxaas taniisa ma aha. taniisa oo waxa uu shaqo ku leeyahay ma aha. shaqaa wixii uu ku leeyahay shaqo asaga loo dirtay ma aha. shaqo dad kale oo loo dirtay, shaqo dadka loo dirtayna waa isagaba la yaaban yihiin. waxay kula yaaban yihiin marka qof aan cid taabanaynin oo nin qof ku sanahaynin oo bariisaha ka qaadanaya oo subscribe gareynaya inuu yiraahdo halkaa qaadani because nimanka u dhowdahay ama naagaha u dhowdahay. laakiin aniga niman idin ma arka, naagaan idin arka. horta marka ugu horeyso waxaan idin sheegayaa naagahana soo dirateena baarka u fideen ee niman kale intay adduun weynaha aadaan ka soo qaadanaya ee dalkii qaatay ee dad kale siiyey inay nimanku iyagu meel walba ka soo gurtaan Ukraine iyo Russia iyo meel walba iyo maxaa dhahdaa meel Jamaica meel walba intay ka soo gurtaan ayagu aniga habarwaa anaa gashan, aniga ninkayga gashan, adigu ma gashanid. waa halkaa ka soo fariisata dhehaysa habarwaa adigu ma gashanide aniga ninkayga gashan bay ku leedahay. haye dhulbaanta aniga ninkayga gashan, ma jeertaan aniga ninkayga gashan, adigu ma gashan. oo anigu sibiil xunaay dhilooy siilkaaga adu meel kale la aaday. adigu gabadhaan aad leedahay waa dhimatay 8 caruur ayadaa Soomaali u dhasho oo Mareykan 8 children oo American hay Minneapolis ku dhashay. adiga maxaa dhashay? siilkaaga xunka aad meel baad u dhoofisay, haddana waxaad Soomaali baa ku dhex jirtaa lacag ka samaysaa oo waxaana la ka weydiinay. wala Soomaali waa dad dhintay ka war. Soomaali waa dad hore u dhintay way. waxay yihiin mal waa dad uruuris ah oo qashin ah oo fadara ah. waxaa ka aragtaa naag xun oo siilka dhulka marba rag soo gurayso oo af Soomaaligu baa haddana u talinaysa ka war. oo u talinaysa haye waxba laga weydiinayaa naag 7 wiil oo caruur oo Soomaali oo u dhashay oo fuyuur ah baa halkaa waxay leedahay waa dhimatay. maxaa dhimanaya? dhimatay haddii dhimatay adeeno maxaa ka galay? maxaa ka galay? naagahan ayaga niman Soomaaliyeed bay isku dhiibteen. haddii niman Soomaaliyeed silciyaan maxaa Soomaali soo dhexgalay? haddii niman Soomaaliyeed silciyaan iyo haddii dhaqaaleeyaan maxaa adig ka galay? ayaga dhexdooda u taala. haddii adigu kulliba gabarnimo iyo Soomaalinimo iyo gabar Soomaalinimo aad ugu support gareynin oo siilkaaga meel kale la aad maxaa naga rabtaa walaalay?
had no idea no aflagaadaysa oo Soomaali u soo dhaxgashaa of Soomaaliga who teach you how to speak Somali first place you should go to Ukraine you should go to Europe you should go to London because you're not supposed to speak Somali and if you learn Somali please don't abuse because you need to learn Somali when you are saying Somalida waa laga badiyaa luqadaha you know gangska aad ku hadlayso waa laga badiyaa so when you are saying that one woman died when she was 34 years old including her 4 children and make it 38 this is wrong waa ku fahmeena gamekaaga qofka haysatana waa ku fahmeena gabar yar oo masaakiin oo wiilal Soomaaliyeed silciyaan oo walaalaheed ah ayaa hadana si aflagaadeynaysa adigana nin kala dhinac fariisata Soomaaliho surweeno baad dhinac fadhida marka Soomaali dhig la'aanteed ka aragtay maanta 10 gabdhood Soomaali inay israacaan weeyaan oo gabadha lacag u geeyaan oo gabadhaas boor gareeyaan gurigeeda ku aadaan oo ay maalin walba mid ay tahay gabadha qaado ay caruurteeda soo tusto daaroodnimo hadii ay jirto kala daaroodo waad baabi'i oo ma aragtay nimankan dadkan daaroodo is urursa kale weelu kala qaybiyay ilaahay wuu ku sii kala qaybinaya sitiyadaada oo dhan iyo ma aragtay goboladaada oo dhan waxa qabsanaysa xabashi Itoobiya insha Allah Itoobiya Kenya talinaysa waayo waadna dhibteen baabuurta yaacaysa noqdaan idinka weynay oo nidaaya hadda baabuurta yaacas aniga ninna kama aqaxta walaalka duut haddii qofka ii joogsado waa aqaana if somebody stop to support me that's all I know but you are not stopping to support you just passing by and you threw rocks on us stay away from us hadda waxa weeyaan inaad caab iyo maartay meel baraaqs nagu soo tuurto ka yeelimayno wallahi baana kaaga yeelahaynin ogow